xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay go'aan dhexdhexaadnimo ka qaadatay khilaafka u dhaxeeya dalalka Itoobiya iyo Masar oo ku saabsan muranka biyaha webiga Niil. wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay go'aan dhexdhexaadnimo ka qaadatay muranka labadaasi dal isla marhaantan aysan la qabin mowqifka dalalka Jaamacadda Carabta ay ku taageereen waddanka Masar. wasiir Cawad ayaa inta raaciyay in dawladda Soomaaliya ay dhexdhexaadnimadan u codeysay kulankii wadamada ku midaysan Jaamacadda Carabta ay kula safteen waddanka Masar oo muranka biyaha Niil markaasi looga hadlayay. sidoo kale wasiirka ayaa xusay in mar walba go'aan dhexdhexaadnimo ay ka qaadan doonaan ama ay ka cayaari doonaan khilaafka salka ku haya webiga Niil. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Jeydu Andar oo ka hadlayay khilaafka webiga Niil ee kala dhaxeeya Masar ayaa ka hadlay qaraar ay ansixiyeen dawladaha Jaamacadda Carabta ku midaysan kaas oo ay Soomaaliya iyo Djibouti ay raaligelin dib ka siiyeen qaraarkaasi oo kolkii hore ay ku taageereen waddanka Masar. Jeydu Andar ayaa si gaar u dul istaagay raaligelinta Soomaaliya isagoo tilmaamay in raaligelintaasi Itoobiya uu soo gaarsiiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre toddobaadkii hore oo uu tagay magaalada Addis Ababa. waxaana inta uu raaciyay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu wakiil ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wararka ka imaanaya degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee degmada Warshiiq ay gacanta ku soo dhigeen 2 askari oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada dawladda kuwaas oo kufsi u geystay gabar ay kala degeen gaari ku socdaalay tuulooyin hoostaga degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana wararku ay tilmaamayaan in intaasi kadib ciidamada ammaanka lagu wargeliyay in falkaasi ay geysteen iyadoo ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay. gudoomiyaha degmada Warshiiq Xasan Maxamed Axmed oo sheegay in 2daas askari ay xalay galinkii dambe ay jidka u galeen gaari marayay tuulooyin hoostaga degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wuxuu sheegay in gabadhii kufsiga lagula kacay loo soo qaaday xarumaha caafimaad ee magaalada Muqdisho si loola tacaalo xaaladeeda caafimaad. ugu dambeyn gudoomiyaha ayaa shaaciyay in maxkamad la soo taagi doono 2daasi ruux isla mar ahaantaana cadaalada la marin doono. inta u dhaxaysa magaalooyinka Muqdisho iyo Warshiiq ayaa waxaa ku soo badanaya falalka ay geystaan maleeshiyaadka burcadka ah kuwaasoo dhibaatooyin u geysta dadka ku safra wadooyinkaasi. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo iyo duqeymo saacadihii la soo dhaafay ciidamada sida gaarka u tababaran ee Commandoska Soomaaliya ay ka fuliyeen deegaano hoos yimaada gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya. howlgalka oo ahaa kuwa qorshaysan ayaa waxa si wadajir ah u fuliyay ciidamo sida gaarka u tababaran ee danab la yiraahdo iyo diyaaradaha Mareykanka iyada oo lala beegsaday saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen qaybo ka mid ah gobolkaasi. taliyaha ururka shanaad ee ciidamada danab Xasan Maxamed Aadan Xasan Ciraaqi ayaa waxa uu sheegay inay burburiyeen ilaa iyo 3 saldhig oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab sida uu hadalka u dhigay. taliyaha Xasan Ciraaqi oo warbaahinta la hadlayay ayaa tilmaamay in saldhigga koowaad ee ay sheegeen inay burburiyeen uu ku yaalay tuulada Buura Xaaji halka kan labaad ee kalena ee al-shabaab ay ku lahaayeen tuulada Lagta Caanoole oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. taliyaha ayaa intaas ku daray inay gabi ahaanba la wareegeen saldhigyadaasi isla markaasina ay haatan wadaan baaritaano dheeraad ah oo ay uga sii bixinayaan miinooyinka ay dhigeen al-shabaab. war qoraal oo bartooda Facebook ay ku shaaciyeen ciidamada difaaca maamulka Puntland ee BSF waxa ay ku sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen xubno la tuhmayo in ay doonayeen sidii ay ugu beeri lahaayeen dagaalamayaasha Daesh iyo al-shabaab ee ku sugan gobolka Bari. lamaha ammaanka maamulka Puntland ayaa sheegay in kooxaha la soo qabtay ay ku sii socdeen dhinaca buuraleyda kalgala halkaas oo afriisimaha ugu weyn ee gobolka Bari ay ka sugan yihiin Daesh iyo al-shabaab. saraakiisha ciidamada difaaca waxa ay soo hadal qaadeen in ragga la tuhmayo ay ka soo qabqabteen buuraleyda Caalmadow iyo Calmistaag ee gobolka Bari halkaas oo ay sheegeen in kooxaha gacanta lagu soo dhigay ay ku dhumaaleysanayeen. inkastoo aan la shaacin tirada xubnaha la soo qabtay haddana arrintan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmihii ku dambeeyay gudaha iyo daafaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ay ka soconayeen howlo baaritaana oo saraakiisha amniga ay ku sheegeen inay ku xaqiijinayeen amniga isla markaana ammaan darida ay kaga hortagayaan. ciidamo ka wada tirsan booliiska Soomaaliya ayaa maanta isku rasaaseeyay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha iyadoo israsaasayntaasina ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. goobjoogayaal ayaa inoo sheegay in labada dhinac ee israsaas dhaafsadeen isla markaasina halkaasi lagu dilay hal askari mid kalena lagu dhaawacay waxaana laga qaatay qorigii uu watay. ciidamo kale oo ka tirsan booliiska Soomaaliya ayaa halkaasi gaaray iyadoo haatan xaaladdu ay tahay
mid degan. waxaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed lagu dhaariyey xildhibaanada cusub ee baarlamanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. tirada xildhibaanada la dhaariyey ayaa ah 95 xildhibaan ee dhowaan la soo xulay. munaasabada dhaarinta xildhibaanada ayaa waxay ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ugu horeeyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo mas'uuliyiin kale. marka laga soo tago dhaarinta xildhibaanada waxaa heshiis laga gaaray tabasho ay qabeen qaar ka mid ah beelaha deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee ku aadanaa qaabka loo soo dhisay xildhibaanada labaad ee baarlamanka koonfur galbeed. sidoo kale wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka soo jeeda beesha Hawiye ayaa lagu qanciyey in la siin doono madaxweyne ku-xigeenka koonfur galbeed waxaana sidoo kale loo ballan qaaday in la siin doono xubno wasiir ah iyo in madax looga dhigi doono degmooyin ka mid ah koonfur galbeed Soomaaliya. wafdigaasi ayaa kulamo socday dhowr saacadood waxay la qaateen madaxweynaha koonfur galbeed waxayna ka wada hadleen qaabka ugu macquulsan oo ay u heli karaan in la siiyo xubnaha ay doonayaan. magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ayaa maalmihii dambe waxaa ka socday kulamo xal loogu raadinayo tabashooyin ay qabeen qaar ka mid ah beelaha degmooyinka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaana tabashooyinkaasi ay ahaayeen qaabka loo soo xulay xildhibaanada labaad ee baarlamanka koonfur galbeed Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee waxaa in muddo qaatay dhismaha baarlamanka labaad ee maamulka koonfur galbeed oo maalmo ka hor looga dhawaaqay magaalada baydhabo. markaana dalka Ruushka in ka badan 8 milyan oo ruux oo u dhalatay wadanka Ruushka ayaa waxa ay waayi doonaan shaqadoodii sabab la xiriira cudurka dilaaga ah ee coronavirus awgeed. dawladuna waxa ay sheegtay in gebi ahaanba dalka uu bandow gali doono shacabkuna ay tahay inay sidaa ogaadaan. waxaa la arkayaa in dawladdu ay durba banaanka keentay kumanaan ciidan boolis oo gaar u tababaran maadaama dalka oo dhan uu bandow galayo. dawladda Ruushka ayaa waxa ay ku biiraysaa dhowr dawladood oo iyaguna sidaani oo kale dalalkoodii bandow u galiyay waxaana ka mid ah Jordan, Hindiya, Sacuudiga iyo kuwa kale. welina waa uu sii fidayaa cudurka dilaaga ah ee corona. haddana waxa uu si weyn u waxyeeleynayaa dalal ay ka mid tahay Talyaaniga, Spain, Iran, Sacuudi Carabiya iyo wadanka Mareykanka. ugu dambeynna in ka badan 23 qofood oo maxaabiis ayaa ku geeriyootay xabsi ku yaala wadanka Colombia kadib markii maxaabiista ay isku dayeen in xabsigaasi ka baxsadaan si ay uga badbaadaan cudurka coronavirus. waxaana intii ay rabshaduhu socdeen ka soo kow dadkaasi dhintay uu dhaawac soo gaaray ku dhawaad 83 ruux oo ka mid ah maxaabiista xabsigaasi ku jiray. wasiirka cadaaladda wadanka Colombia ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah maxaabiistaasi ay wajihi doonaan dacwado kale oo dheeriya haddii lagu helo arrimahaas inay ku lahaayeen. waxaa kaloo jira in ilaa iyo 13 xabsi oo kale laga cabsi qabo in shaqaaqooyinkani oo kale ay ka dhacaan sida waxa wariyay haweeney u hadashay dawladda. dhanka kale dadkii ehelada maxaabiistaasi ahaa ayaa iyaguna waxa ay soo buux dhaafiyeen jeelasha si ay u ogaadaan dadkoodii ku jira xabsiyada inay dhinteen iyo kale.